qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Gabiley ayaa si weyn waxay u soo dhaweeyeen socdaalka madaxweynaha Somaliland oo ku maraya qaar ka mid ah wadamada Afrika gaar ahaan wadanka Guinea iyo sidii loogu soo dhaweeyay sidoo kale waxa si weyn uga soo horjeesteen hadalkii ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadanaa in ay xiriirka u jartay dawladda wadankaasi Guinea warbixinta warkaasi waxa magaalada Gabiley inooga soo diray wariyaheena Maxamed Xasan Sheekh Juba iyadoo ay dhawaan ahayd markii madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hogaaminayay si meeqaam sareysa loogu soo dhaweeyay dalka Guinea ee galbeedka qaaradan Afrika ayaa sida aynu la wada socono madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu si kooban uga hadlay soo dhaweynta Muuse Biixi iyo waliba xiriirka dalka Guinea iyo Somaliland isagoo ku tilmaamay in ay tahay faragelin xuduudeed waxaana xusid mudan in maalinnimadii shalay ahayd ay dawladda federaalka Soomaaliya sheegtay in ay gabi ahaanba xiriirka u jartay dalkaasi Guinea haddaba qaar ka mid ah shacbi weynaha reer Gabiley oo iyagu maanta munaasabad ballaaran oo ay ku taageerayaan soo dhaweynta madaxweynaha Somaliland loogu sameeyay dalka Guinea ayaa geesta kalena waxay kaga hadleen hadallada ka soo yeedhaya dawladda Soomaaliya waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maxaa looga xanaaqayaa Guinea kuwaana ogol ee raacaya ayaa muujinayna waddanka Afrikaana haddii la yiraahdo waxaanu isku dayaynaa inaynu tusno mabda'yaga xaqayaga iyo dowladnimadeeda ayaanu ugu tagaynaa Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha jirto Somaliland ha joogto tii jirtayna ha ka dhigo kan waxaa nafta waa wasalaynagu aqoonsanayaa insha Allah isagoo ka degay waxaan sheegayaa xamar malaa dadka kala dheer bay la taanaga meel ay badan la yiraahdo marka toosan nidhaam baa la dhahaa bando 6 ilaa 6 ayay bandoona saarnaan jirtay oo jireen marreexan in hor joogi jiray marka waxaan leeyahay idankan ina siyaad bare walaal kala dhamaanaha nagu riyoobaysaa madaxweynaha wixii aanu dooranay iyo waajibaadkii aanu dooranay baa uu wadaa insha Allah bidmillaahi kariina aqoonsigu gacantiisa intuu xilka hayo ayuu ku soo dhici doonaa waad arkayseen madaxweynihii sida loo soo dhaweeyay helicopter baa lagu qaaday kolkuu ka soo degay meesha haddana helicopter baa lagu qaaday markii lagu qaadayna halkii madaxtooyada la geeyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aad baan ku soo dhaweynaa ruuxa badiyada waa ku garab taaganahay halka ay wax marinayso waa sharaftayadii la madaxweyne guushaadkaanay annana waanu ku garab taaganahay haddaanu nahay dhaqameedka haddaanu nahay mutacalimiinta haddaanu nahay hooyooyinka alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa ixtiraafay ilaahay yaa ixtiraafay cidina inaguma dhawaan farahaygaaba ka mid ah halgankii dee wixii wax ku noqday waa tusaalaha ugu yar haddii la eego marka waxaan leenahay adigu horta bal adigu dib iskugu fiirso horta dib iskugu noqon ninka farmaajo la yidhaaha ee dawladdan taagta daran leh maamulo inta koonfuriyoo geysatay ingiriiskii u guulaystay waxaa loola geysan annagu haddaynu nahay Soomaaliya weynkaa ogaana walaalnimadana aynu dhaafnaa waxaynana aynu qabsannaa waxaanu hambalyo u diranaa wadamada aynu saaxiibka nahay ee carab leh ee afrikaan leh ee yurubiyaan leh ee sida qiimaha leh runtii madaxweynaheena u soo dhaweeya qiimaha iyo qadarinta la siiyeyna waynu garan karaynaa waana waxa ka qaylisiiyey fadhiidka farmaajo iyo go'doonka uu ku jira kaaraha lagu dul ilaaliyo waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Kalsan TV ee gobolka cagaaran ee Gabiley.